in ka badan 9 ruux ayaa geeriyooday tirinta ka badan oo ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay gudaha wadanka Afghanistan sidoo faafaynta warkaasi ku eegay wariyahayaga Maslax Nasiib. qaraxan ayaa waxa ku geeriyooday 95 qof in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nuuca ambalaas oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa kaas oo ku qarxay bar control ay dadku ku badnaayeen kadib markii halkaasi lagu joojiyay gaariga. dowladda Afghanistan oo ka hadashay ayaa waxa ay ku adeegsay dowladda Pakistan inay taageerto maleeshiyaadka Taliban oo dagaal kula jira Afghanistan. kooxdan Taliban oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ayaa waxa sidoo kale sheegeen in weerarkani uu noqonayo kii ugu dhimashada badnaa bilihii ugu dambeeyay. dowladda Mareykanka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku cambaareysay weerarkan kadib dad badan oo lagu laayay, wuxuuna madaxweyne Donald Trump ku baaqay in tallaabo adag laga qaado kooxdan Taliban. weerarkan ismidaaminta oo dad badan ay ku dhinteen ayaa imaanaya kadib toddobaad markii kooxda Taliban ay weerareen hotel ku yaala caasimadda Kaabul oo in ka badan 20 qof ay ku dhinteen. Maslax Nasiib.